dowladda Mareykanka ayaa uga digaysa dhigeeda Shiinaha taageerada dhinaca amniga iyo saadka ee Shiinuhu u fidinayo Ruushka, taasi oo Moscow ay u isticmaalayso dagaalka ay ka wado Ukraine, iyadoo Mareykanku uu ku sheegay arrintaasi inay tahay khadcas. Hadalkan ayaa kusoo beegmaya xilli xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka uu ku sii jeedo caasimadda dalka Shiinaha ee Beijing horaanta bisha soo socota. xogaha ku-xigeenka difaaca Mareykanka u qaabilsan Shiinaha Michael Case ayaa la hadlay Song Chou oo ah ku-xigeenka agaasimaha xafiiska Shiinaha ee iskaashiga caalamiga ah ee militariga, sida laga soo xogtay sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka oo ka gaabsaday inuu magaciisa sheego. Wadahadallada militari ee dhex maray Mareykanka iyo Shiinaha ayaa imanaya iyada oo Mareykanku uu si dhow ula socdo go'aamo kasta oo ka yimaada dalka Shiinaha oo ku saabsan codsiyada taageerada amniga ee uga imanaya Moscow. Sarkaalka Mareykanka ayaa sheegay inay ka war heleen warbixino ku saabsan duulimaadyo badan oo ay diyaaradaha alaabooyinka qaada, si gaar ah kuwa qaada xamuulka waaweyn ee Ruushka ay ku tageen gudaha dalka Shiinaha. Mareykanku waxa uu tilmaamay inuusan dunida ka aqbalaynin in lagu garabsiiyo Ruushka waxa uu Mareykanku ugu yeeray dagaalka gardarrada ah ee uu ka wado Ukraine. Si gaar ah wuxuu uga digay dowladaha xulafada la ah Moscow inay ku taageeraan colaadeeda. Waxa Mareykanku uu ku goodiyay cunaqabateeno aan laga soo kabsan doonin in lagu beegsan doono dowlad kasta oo isku dayda inay garab u noqoto Moscow. Mareykanku waxa uu meesha ka saaray xorriyad kasta oo dal uu leeyahay inuu taageero dal kale. Waxa uu tilmaamay arrintan inay ka fog tahay taageero iyo madax bannaani. Mareykanku waxa uu sheegay in taageero militari oo xilligani adag la siiyo Moscow ay ka dhigan tahay duulaan cad oo lagu qaaday dimuqraadiyadda iyo sidoo kale ku lug lahaanshiyo toos ah oo lagu lug lahaanayo. Waxa uu ku tilmaamay duulaan gardarro ah oo lagu qaaday dal madax bannaan. Si gaar ah Mareykanku waxa uu ugu sheegay inuusan aqbalaynin in waxa uu ugu yeeray fidnada lagu fidiyo bariga Yurub. Mareykanku waxa uu sidoo kale sheegay inuu laba jibaarayo taageerada militari ee uu siinayo dalka Ukraine, isagoo Mareykanku uu ku doodayo arrinkaasi inuu ka dhigan yahay garab istaag uu muujinayo dowladda Ukraine. Mareykanku waxa uu ku doodayaa in tallaabooyinka reer galbeedku ay ku taageerayaan Ukraine inay ka dhigan yihiin kuwo iska caabin ah. Hase ahaatee, toddobaadkan xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Mr. Lloyd Austin ayaa waxa uu safar uu ku tagay Berlin. Khudbad uu ka jeediyay Jimcihii halkaasi, Mr. Lloyd waxa uu tilmaamay in Mareykanku ay ka go'an tahay sii wadida taageerada Ukraine ilaa ay ka gaarto guusha lama huraanka ah. Waxa uu sidoo kale xogayuhu tilmaamay in xulafada ay ku boorinayaan sii wadida taageerada. Sidoo kale waxa uu sheegay Mareykanku inuu bilaabayo tababaridda ciidamo gaar ah oo ay yeelanayso Ukraine, ayuu yidhi, kuwaasi oo qayb ka noqon doona difaaca dalkooda. Sidoo kale waxa uu kaga dhawaaqay halkaasi taageero xirmooyin cusub ah oo ay ku jiraan lidka diyaaradaha iyo kuwa gantaalada. Sidoo kale xogaye Austin meesha kama uusan saarin taageerada Mareykanku uu muujin karo in la siiyo Ukraine hub ay ku doonayso ama ay ku gasho colaad ay ku qaado Crimea oo ah gobol Ruushku uu ku qabsaday Ukraine 2014. Arrinkaasi oo Mareykanku bilowgii dagaalka uu u arkayay mid zaa'id ku ah colaadda haatan taagan. Mareykanka ayaa mas'uuliyiintiisu dhowr jeer hore waxa ay ka gaabsadeen in Ukraine ay ku garabsiinayaan qabsashada iyo dagaal lagu qaado Crimea. Hase ahaatee, si qayaxan ayuu Mareykanku u tilmaamay in afarta gobol ee Ruushku uu sheegay inuu dib kaga darsaday Ukraine in arrinkaasi uu kasoo horjeedo uuna ku taageerayo Ukraine soo ceshashadooda. Sidoo kale, dalalka Yurub ayaa isku garabsanaya inay ururiyaan saanad militari oo dhabar jabin karta loolanka dagaalka halkaasi ka oogan iyo damaca Putin. Waxa Ingiriisku uu horkacayaa dowlado Yurub ah oo ballan qaaday taangiyo iyo sidoo kale rasaastooda inay ku biirinayaan Ukraine. Waxaa sidoo kale kula jira Ingiriiska 8 dowladood oo intooda badan ay ka tirsan yihiin ururka lagu magacaabo Midowga Yurub. Dowladahaasi ayaa waxaa ka mid ah qaar aad uga agdhow goobaha colaadaha oo ay horkacayso dalka Poland. Latvia ayaa sidoo kale qayb ka ah dalalka ugu balbalaaran ee dagaalka ee ka taageeraya Ukraine. Toddobaadkan soo bandhigay taageero militari oo culus waxaa ka mid ah Finland iyo sidoo kale dalka Holland. Hase ahaatee, Spain ayaa mar kale meesha ka saartay suuragalnimada in midowgu si wadajir ah isugu raaco in saarad militari oo xoog leh oo si gaar ah u qaabilsan taangiyada colaadaha lagu taageero dalka Ukraine. Jarmalku isagu waxa uu ku xiray shardi in taangiyada uu farsameeyo la geeyo Kiev. Xukuumadda Berlin waxa ay tilmaamtay inay ka doonayso dowladaha kale ee gobolka
iyo sidoo kale dowladaha xulafada ah oo ugu horeeya Washington in ay ku biiriyaan iyana taangiyo si go'aanku u noqdo mid wadajir ah. Berlin waxaa sida la fahansan yahay ay ka fogaanaysaa cawaaqib xumo kasta oo ka dhalan karta isfahmi waa soo kala dhaxgala Moscow iyo sidoo kale Brussels. Berlin waxa ay doonaysaa inaysan ku kala noqon taageerada military ee halista ah oo ay siinayso Moscow. Kol hore oo bishan ah, madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin waxa uu sheegay inuusan aqbalaynin taageero zaa'id ah oo la siiyo Ukraine. Si gaar ah waxa uu ku tilmaamay in haddii hub la siiyo Ukraine lagu garaafeeyo ama dhibaato loo geysto gudaha dalkiisa iyo sidoo kale goobaha istiraatiijiga ah ee Ruushka, intaasi ay ka dhalanayso Ruushku inuu qaado tillaabooyin aan la filanaynin. Moscow ayaa waxaa lagu arkay toddobaadkan in la geeyay gaadiidka difaaca cirka iyo sidoo kale ka hortaga weerarada gantaalaha goobo xukuumaddu ay leedahay oo ay ka mid tahay wasaaradda gaashaandhigga. Sidoo kale hareeraha magaalada caasimadda ah ee Moscow ayaa waxaa lagu arkayay gantaalada lidka difaaca ee cirka ee S-400 oo magaalada caasimadda ah duleedkeeda la tubay. Sidoo kale xogo sirdoon iyo dayax gacmeedyo sawirro lagu qaaday ayaa iyana waxaa la sheegay in lagu arkayay gaadiidka ka hortaga diyaaradaha droonka ah iyo gantaalada in lagu biiriyay lidka difaaca isku dhafan ee wadajirka ah ee ilaaliya Kremlinka oo ah aqalka looga taliyo dalkaasi Ruushka. Ciidamada Ruushku waxay weli sii wadaan dagaalada ay ka wadaan bariga Ukraine. Magaalada Bakhmut oo ah magaalo in badan colaadu ay ka aroorsan tahay ayaa diriirtu haatan ay u muuqataa inay sii laba jibaarmayso. Dhinacyaduna waxay adeegsanayaan saanad military ugu cusleed. Ciidamada Ukraine waxa ay ku doodayaan inay iska caabinayaan guluf kaga imaanaya ciidamada Ruushka oo kaashanaya kooxda ammaanka gaarka ah ee Wagner iyana waxay ku doodaysaa inay qabsatay dhul ballaaran oo ah daafaha magaalada Bakhmut. Sidoo kale gudaha magaaladana ay horumaro ka sameysay. Waxaa sidoo kale Wagner ay ku faantay qabsashada magaalada Soledar oo toddobaadkii ay soo dhaafnay ay gacanta ku dhigtay. Waxay sheegtay kooxdu inay soo afjari doonto colaadda magaalada Bakhmut si ay tiri hore ay ugu sii socdaan ciidamada Ruushka. Putin ayaa waxaa haatan la fahansan yahay inuu qorsheynayo wax aan la fahmaynin maadaama ciidamada Ruushka lagu arkayo gudaha dalka Belarusiya halkaasi oo ay saldhigyo ka sameysanayaan. Ciidamada Belarusiya iyo kuwa Ruushka ayaa gudaha dalka Belarusiya waxa ay ka sameynayaan dowladda military kuwaasi oo shaki ku abuuray dalal badan oo reer galbeed ah ilaa la gaaray heer fariimo digniina ah oo dhinaca amniga ah ay ku biiriyaan Kiev dalalka reer galbeedku iyagoo kaga digaya weerar la filan karo in laga soo qaadayo xuduudeeda koonfureed waa xuduudeeda waqooyi oo ay la wadaagto dalka Belarusiya. Hogaamiyaheeda Mr. Lukashenko oo hadlay waxa uu tilmaamay inay filinayaan wax walba oo uu ka dalbado xulafadooda si gaar ah madaxweyne Vladimir Putin. Lukashenko waxa uu tilmaamay inuusan ka baxaynin garabka Putin xilligani adag, isagoo sheegay in ummadda Belarusiya iyo kuwa Ruushka ay yihiin laba ummadood, waa hal ummad oo laba dowladood ku kala jirta.